أصحابي soo dhawaada maasha allah inaad wanaagsantiin ayaan rajeynayaa. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago sidaad arkaysaan halka idinkaga muuqato. Waxaa la yidhaahdaa buugag 1, 2, 3, 4, 5 buug. Buugagtan waxaan kasoo gaday dukaamada celiska ama Brugti boutique lahaa. Saad arkaysaan 5 buug oo waxaa waaye loo malay inay cusub yihiin markaad aragtid macna buugtan waa lasoo akhrisis ma dhehis coverkooda siday u yaalaan u diyaarsan yihiin. buuggan horan u akhriyay laakiin haddana mar kale inaan akhriyaan rabaa insha allah. buugagtan 5 buug weeyaan waxaan kasoo gaday maanta meesha la yidhaahdo Brugti boutique ama dukaamada lagu iibiyo buugagta celiska ah. waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto dadka jooga Norway degan haddii aad doonaysid inaad buugag akhrisid isla markaana aad heshid buugag raqiis ah. waayo qofka markay noqoto dhaqaale waxa laga yaabaa buugta inay qaali yihiin markay cusub yihiin oo dukaanka ay yaalaan laakiin marka ay celisiin waa raqiis. buugagtan waxaan kusoo gaday 5tooda 30 karoon. aan ku celiyay mar kale buugagtan 5 buugad arkaysaanba 3 kamid Norweji ku qoran yihiin 2 kamidna English waa 5toodaba waxaan kusoo gaday 30 karoon bisa. sababta ma garanaysaan buugagtan qaali waa marka ay dukaanka yaalaan ay cusub yihiin laakiin hadda dadka sanadka waxay ay akhriyeen soo celinayaan buug cusub ay gadanayaan buugta hore iska soo celinayaan. marka dukaamada buugagta isticmaalka lagu iibiyo ama hore loo soo isticmaalay ayay keenaan. maxaa markaa dhacayso dadkaas markaa iibinaya lacag yara iibinayaan. mid kale in 5 buug lagu helo 30 karoon markasta ma dhacdo waayo hadda waxay u sameynayaan waqtiga waxaa lagu jiraa xilliga Christmas taa lagu jiraa ciidahooda ay u dabaaldegayeen. marka waxay leeyihiin wax kasto waa lasoo jibinaa qiimo jaban lagu siinaa qofka qiimihii ahaan jira qiimo ka yar lagugu siinaa wax la yiraahdo tilbud ayaa la sameynayaa. marka dadka Norway jooga waad ka faa'iideysan kartaan buugagtan Brugti boutique kugu dhow waliba haddii aad Oslo degan tahay dukaamada buugagta celiska lagu gada tag buugagta aad rabtid soo xulo. marka hadday noqon lahayd faag buugagta la dhahaa buugagta maxay ahaday subjects ah waa raqiis tilbuda laga soo dhigaa. buugagta maxay ahaday function bookska history bookska iyo dhammaan buugagta aad rabtid oo dhan hadda buugtan aniga waxay u badan yihiin psychology iyo motivation waaye intooda badan. aan kama helin buugta businesska aan rabay laakiin motivationka badana ama psychology buugta psychology badana waan akhriyaa qofka naftiisa wax ka bedelayo. insha allah idinkana ka faa'iideysta waqti fiican weeyaan hadoo kale isbuucan iyo isbuuci soo socdaba waa laga faa'iideysan karaa. marka buugtan waa raqiis waa qiimo jaban runtii aadan malaysan karin qof walbana uusan ku heli karin. dadkan ka hadlayna waa dadka jooga wadamadan Yurub gaar ahaan haddii aad Norway degan tahay. dadka Soomaaliya jooga fursadaas ma helayaan ama Afrika jooga laakiin idinka waad helaysaan buug raqiis oo celis ah isla markaana aad moodid inay cusub yihiin coverkooda markay taagan yihiin aad u malayso buug cusub si lagu helo way adag tahay oo raqiis ah. marka insha Allah ka faa'iideysto way sanadka waa muhiim in qofka qorshe wax akhris leeyahay. qorshaha wax akhris mar kasta qofka bini'aadamka waa u muhiim. haddii aad doonayso noloshaada inaad horumarka gaarto waa inaad leedahay qorshe wax akhris buug aad akhrisaa sanadkaada aad qorsheysataa ama aad jadwal u samaysataa. insha Allah aadaan islaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.